Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhur wanaagsan. Halkan waa channelka Toosno Media qodobada wararka ugu doorkaroon ay idin hayso Toosno Media-na waxa ugu waaweyn. Ra'iisul Wasaare Roble oo fariin u diray ciidamada iyo shacabkii ka barakacay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh oo mar kale digniin ka soo saaray arrimaha ciidamada. Mursal oo kulan degdeg ah isugu yeeray xildhibaanada. iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo lagu laayay shabeellada hoose. Qodobadaasi iyo qodobo dhowr ayaa warkeena duhurnimo ku maqli doontaan. Kusoo dhawaada faahfaahinta warka. Ra'iisul Wasaaraha xilka sii haya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo soo saaray qoraal kooban ayaa mar kale ka hadlay xaaladda adag ee magaalada Muqdisho isagoo fariin culus u diray shacabka iyo ciidamada ammaanka. Roble ayaa ugu baaqay dadkii shacabka ahaa ee ka barakacay guryahooda inay dib ugu soo laabtaan caasimadda maadaama xiisad taagneyd xal laga gaaray. Waxaan ugu baaqayaa dadkii ku barakacay qallaasihii maalmahan ka jiray Muqdisho inay guryahooda ku soo laabtaan, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Sidoo kale wuxuu amray in ciidamada ammaanka ay shacabka u fududeeyaan inay guryahooda iyo ganacsigooda ku soo noqdaan. Ra'iisul Wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in ay ka go'an tahay xukuumaddiisa in la helo nabad iyo xasillooni buuxda si dalkan ay uga dhacdo doorasho wadar ogol ah. Ciidamada waxaan farayaa inay shacabka u fududeeyaan inay guryahooda iyo ganacsigooda ku soo noqdaan, waxaana naga go'an in shacabkeenu helaan nabad iyo xasillooni, ayuu sii raaciyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ay degan tahay xaaladda magaalada Muqdisho gabi ahaan kadib markii ay shalay Ra'iisul Wasaaraha uu shaaciyay in la aado doorashooyin xor iyo xalaal ah si dalka loo badbaadiyo loogana hortago in la galo qallaase iyo fowdo hor leh. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo u waramayay wariyaasha ayaa mar kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan muranka doorashooyinka iyo arrimaha ciidamada. Xasan Sheekh ayaa sheegay inay marar badan ku celceliyeen digniinta ku aadan in aan la siyaasadin ciidamada, balse la arkay wixii dhacay sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ugu baaqay ciidamada inay iska diidaan wax kasta oo ka hor imaanaya dastuurka dalka. Aniga dhowr jeer waan ka digay in la siyaasideeyo ciidamada, waxaana ku mahadsan ciidamadii diiday in loo adeegsado wax aan dastuurka ogolayn. Waxaan ugu baaqayaa ciidamada inay iska diidaan wax kasta oo ka hor imaanaya dastuurka. Waxaa kale oo intaasi ku daray inay muhiim tahay in wax walba lagu dhameeyo miiska wada hadalka, isla markaana laga wada tashado aayaha dalka iyo badbaadadiisaba. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Muqdisho ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwo kale oo ka hor yimid muddo kordhinta 2 sano ee loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa iclaamiyay fadhi gaar ah oo ay degdeg isugu imaanayaan xildhibaanada Soomaaliya, kaas oo uu codsaday madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Fariin gudoonka Golaha Shacabka u diray dhammaan xildhibaanada ayaa looga codsaday in ay kasoo qayb galaan kulan aan caadi ahayn oo madaxweyne Farmaajo kula hadlayo xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanada dalka dibadiisa ku sugan iyo kuwa jira gobollada dalka waxaa la farayaa inay si degdeg ah u soo galaan caasimadda Muqdisho si ay u soo xaadiraan fadhigan aan caadiga ahayn maalinta Sabtida ay taariikhdu tahay 1 bisha May 2021 maadaama ay jiraan xaalado adag oo u baahan in dalka laga samato bixiyo, ayaa lagu yiri faahfaahin rasmi ahayd oo ku socotay xildhibaanada Golaha Shacabka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu ka codsado Golaha Shacabka inay ka noqdaan go'aankii muddo kordhinta ahaa ee 22 Abriil uu isna saxiixay kadib markii cadaadis iyo cambaareyn kala kulmay gudaha iyo dibaddaba. Madaxweyne Farmaajo ayaa go'aan siyaasadeed galay shalay kadib markii muddo kororsiga ay diideen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo maamul goboleedyada Hirshabelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Marka baarlamaanka ka laabto muddo kororsiga ayaa dib loo furayaa wadahadaladii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo horseeda in dalka ay ka dhacdo doorasho wada ogol ah. Ugu dambeynna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa inay saacadihii la soo dhaafay howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen duleedka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi ay ku xoogan tahay ururka Al-Shabaab. Howlgalka ayaa si gaar ah uga dhacay tuulada Ugunji kadib markii ay weeraro gaadmo ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya.
saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inay heleen xog ku aadan weerar ay kooxda al-shabaab kasoo abaabuleysay halkaasi kadibna ay weeraro ku qaadeen si ay uga hortagaan duulaanka kusoo socday. Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in ay dileen ugu yaraan 11 dagaalame islamarkaana ay gubeen gaari cabdibile ah oo loo diyaarinayay fulinta weerarkaasi. Dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ee ay guulaha ka sheegatay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Shabeellada Hoose ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka dhacayay weeraro geystay khasaare kala duwan iyadoo ay xoogeysteen dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolkaasi. Guud ahaan inta aynu kusoo gabagabeyneynaa warkeena duhurnimo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.